مسؤولية دونا مجديد كلا دوان guddiga fulinta iyo guddiyadooda kale gaar ahaan guddiga oo dastuurka ansixintiisa u dambeeyay halkan fadhiyay waxaan idin leeyahay wa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay hambalyo dhammaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed dabcan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed galay shirka sanadlaha ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo runtii yani hawsha weyn ee maanta u fushay ee ah ansixinta ama codeynta iyo ansixinta dastuurkii uu ku dhaqmi lahaa ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed dastuurka waa iskuma sheegayno waa wax la wada ogyahay waa heshiis bulshada kanada aan wadno oo ka wadno baarlamaanka labadiisa aqal dabcan kana waa heshiis baahda dhakhaatiirta caafimaad ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed heshiiskaas dabcan sida hadda looga dhawaajiyay waa yani waa dynamic waxaan aad u faraxsanahay weliba codka aqlabiyadda leh aad ku ogolaateen oo weliba ugu codayseen taasay ku yani tusaale u tahay yani kalsoonida isku qabtaan dood dheer kadib weliba ansixinayso ay sheegayso weliba xagga dimuqraadiyadda dad u bislinaad tihiin muxaadaraadtiin dhakhaatiirta Soomaaliyeed kadibna aad ku ansixiseen aqlabiyad dhaaftay marka taas waxaan idin leeyahay waxay yani muujinaysaa ama tilmaamaysaa biseelkiina oo weliba yani ka mid ahaanshaha ururkiina ama ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo ah weliba urur waxtar weyn u leh maanta kana mid ah ururada bulshada rayidka kuwa waxtarkooda aad iyo aad ugu muuqdo ayuu tilmaamay u tahay wixii aad soo qabateen muddooyinkii la soo dhaafay iyo marxaladii kala duwanaa aad soo gudubteen oo sida bulshadiina ugu adeegteen xilliyadii weliba aad iyo aad yani oo u dhibka badnaa ee emergency-ga ahaa iyo xilliyadii kale oo taakulaynta bulshadiina ahaa marka uma soo kicin wax kale waxaan rabaa hambalyo si hadda uu sheegay Dr. Diblaawe waa run shirkan ka soo baxay doctoreysada way la soo xiriirtay yani muhiimadda uu ii leeyahay runtii yani ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo weliba fursadda maanta ku wajahan yani arrinta ansixinta dastuurka ayaan aad u danaynahay waxaan rabaa halkaas yar barnaamij inaan furo oo waan jeclaan lahaa maanta markaan saan u fiiriyey dhankaan fiiriyey dhakhaatiirtii weynaa odayaasha maanta waa ku yaryihiin meesha dabcan waan jeclaa inay maanta weliba aad u wada joogaan si mug leh maxaa yeelay waa event oo taariikhi ah oo yani ansixinta dastuurkii uu ku dhaqmi lahaa ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed waana rajaynaynaa insha allahu tacaala saa u qaadateen ayagana inay idinla qaateen dhakhaatiirteenna waaweyn waxaan rajaynayaa insha allahu kii howlgal noqdo in walaahow bilkulliyan yani aragtida waa tusin kartaa qofka laakiin walaahow ma jiri karo maxaa yeelay waa wax had iyo jeer in la sax u baahnaan doono la sixi doono meeshii yani loo baahdan lagu dari doono laga dhimi doono marka kuma sii dheeraanayo waxaan leeyahay mar kale hambalyo bogaadin waxaan u hambaleynayaa guddigii ka soo shaqeeyey hadda oo ayto dastuurka shaqadii ficneed ay qabteen guud ahaan waxaan rabaa guddiga fulinta hawsha uu qabtay muddadii oo koobneed jiray waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoonkaba shaqadii wanaagsaneed oo runtii hormuudnimada ahayd ay soo qabteen bulshada intuu jiray muxuu ahayto ururkan dambe saas oo kale muxuu ahayto mas-uuliyiintii hore iyo guddiyadii hore ee kasoo shaqeeyey soo daadihiyey kasoo bilaabatay ilaa waqti dheer oo yani ay ka bilaabatay arrinta ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed mar kasta aan xusan waa jirtaa u sii noqo ilaa iyo guddigii adeega bulshada ee magaalada Muqdisho isku dhafka ahaa
intii howl ka soo wada qaadatay waa tan maanta ay ku soo biyashoobatay oo runtii ah inay dastuur ay leeyihiin ururka dhakhaatiirta soomaalida ay sameeyeen ay ku dhaqmi doonaan taasoo wax weyn yacni kobcin doonta runtii hawsha ay bulshada soomaaliyed u haayeen kuma sii dheeraanayo waxaan leeyahay hambalyo 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 iyo bogaadin waxaan leeyahay allah idinla garagalo annagana waxaan diyaar u nahay weliba ururka maadaama uu yahay urur non governmental oo urur bulshada rayidka ah waxaan diyaar u nahay weliba dhakhaatiirtayna ku jirto yacni goobaha qaarkood sida guddiga adeega bulshada guddoomiyaha ka ahay waxaan diyaar u nahay inaan maaragtay aan wixiina looga baahdo aan gacan ka geysan annagoo ka mid ah weliba si hadda arkaysan xubnaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed aad iyo aad umahadsantihiin waxaan ka rajeynaa guul iyo guul wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah